magaalada Boosaaso qarax ayaa maanta lagula eegtay kolonyo gaadiid ah oo la socday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni qaraxa waxa ku dhintay ilaa 2 qof waxaana sheegatay mas'uuliyadiisa al-shabaab madaxweynaha waxa uu tacsi u diray dadkii halkaasi ku dhintay Maxamed Xasan Dhalo ayaa Boosaaso warkan ka soo diray ugu yaraan 2 askari ayaa ku dhintay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen laamaha ammaanka ee gobolka Bari qaraxaasi oo ka dhacay afaafka hore ee magaalada Boosaaso ee xagga koonfureed ka xiga waa jidkan oo qarax uu ka dhacay meel aan sida uga fogeen kaasi oo la kacay gaari ay saaraayeen qaar ka mid ah ilaalada madaxweynaha Puntland xilli madaxweynuhu magaalada soo galiyay kadib safar dhanka dhulka oo 2 casho ku soo jiray ka soo tagidiisa Garowe kadib madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni safarkiisu waxa uu ku soo beegmayaa magaalada Boosaaso uu ku imanayo xilli maalmihii u dambeeyay ama 2 bilood ee ugu dambeysay magaalada Boosaaso ay ka dhaceen ugu yaraan 5 qarax kaasi oo kii ugu dambeeyay uu magaaladan ka dhacay 2 maalin oo ka hor isaga oo lala eegtay qaar ka mid ah guurti halkan u joogtay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya guurtidaasi 2 ka mid ah ayaa geeriyooday oo iyagana lagu aasay shalay magaalada Boosaaso madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni waxa ugu dambeysay magaalada Boosaaso sanadkii hore xilligaasi oo diyaarad ku yimi isaga oo tuuto xiran kadib markii al-shabaab ay weerareen jeelka magaalada Boosaaso Maxamed Xasan Boosaaso